السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتين قالي كسر هذا القناة كان فضل هدي أنا وعصوتين سبسكرايب نوده ظهرونا للجوكتنا لاكتي شيرت وحقينا هذا يعني إنكم مهت علينا يا سولو بنت أد نو سولو ويسني يدير قلين تأد ناس مسين أصحابتين عصبنا ونوصل بيرتنا وحايدين لنا سولو هذا قاعد مفرون كسولو هذا ما شاء الله ما أنتو حان كهاد لدونا إسبدل هذا كوي ماذا المهم ركو جارت تضرب بلود ما شاء الله المهم ركو جارت تضرب بلود marka hore waxaa soo muuqanaya ilkihiisii u horeeyay ee soo baxa ayaa soo muuqanaya ilmo ka soo dib dhaca way jiraan laakiin inta badan 7 bilood ilmaha markay gaaran ilkihii ugu horeeyay ayaa u soo muuqda ciyaalkan waa ku kala duwan yihiin ilmo waxaa jira adiga sanad ugu soo baxo ilmo 5 bilood ugu soo baxaan ilmo 6 bilood ugu soo baxaan ilmo 9 bilood ilkaha ugu soo baxaan ayaa jira ma sha Allah 7 bilood markuu gaar ilmaha waxaa soo muuqanaya ilkihiis u horeeyay sida caadiga ah ما شاء الله المهاد وحنا نقولنا مد ولا عدين بدن every time وقتية انت هذا بدن وياها المهاد متسك قصله ما شاء الله وفرح سن المهاد وحلو باهي هاي فاستي مسكح لنا كوريو لما ربوا إن محيط المهاد عنانت انتو يري هاي عنانت أمونك سنة بختين أيوك قاضية أبور سنان أيوك قاضية المهاد وحنا نقول المهاد فرح سنين مركا كود ذالا فرستي سنة هرية بكسو بلاو إلا تضرب سنة عنده ilmaha lama garaaco waa loo sheegaa si tartiib ayaa loogu sheegaa laakiin garaacisa ku degdegina sidoo kale ilmahaadu markuu 7 bilood gaaro waxaa muhiim u ah ama u dhamaato inaad borotiinka qaar kamid ah aad siisid sida digaagka oo kaleeto aad cuntada uu ku qadeynayo aad ugu darto maxaa yeelay ilmaha habeenkii hilib lama siiyo inta badan dheefshiidkoodan aad buu u yaryahay subaxdiina waxaa la siiyaa quraac iska fudud ayaa loo sameeyaa ama boorash oo kale laakiin duhuradii oo kaleeto cuntada marka uu sameynaysid ugu dar cad yar oo digaag ah si uu ugu helo borotiin ugu helo maxaa yeelay ma sha Allah aad ay u wanaagsan tahay digaaga in qadada loogu daro marka wax yar ugu dar qadada hadii aad awoodo sidoo kale ilmahaadu wuxuu bilaabayaa inuu ciyaaro ma sha Allah waxyaabaha gacmaha ku soo qabsado maxay tad ciyaaro ma sha Allah aad ayuu active u noqonaya ilmahana waxaa muhiim ah in la siiyo boobili iyo dhoolidi iyo si dadba u kala yaqaanaan in loo soo iibiyo waxaa ka wanaagsan waxyaabahan oo kaleeto xarfaha iyo maxay waxyaabaha maantana la isku kordhi dhisaayo oo kaleeto aad ay u wanaagsan yihiin kuwaasi maxay dhoolida ama عروسة ilmaha waxba ka faa'iidi maaya maanta way iskaga ciyaaraan laakiin kan sida isku korsa saaraya maanta wuu kala dejinaya wuu isku sameynaya maanta dhan wuxuu ka dhiganayaa mashquul ayaguna way ka kala cararayaan wuu isku soo celcelinaya ma sha Allah maanta dhan mashquul ay ka dhiganayaan tan ayaan ugu wanaagsan waxyaabo far badan ayeen maskaxda u furfuraysaa sidoo kale ilmahaada wuxuu bilaabayaa 7 bilood markuu gaaro inuu qaandada asi qabsado si uu cuntada ugu cuno qaandada ayuu kula qabsanayaa si uu ugu cuno cuntada wuxuu jecel yahay wax walba asiga inuu gacantiisa ku cuno ma sha Allah aad ay u wanaagsan tahay in ciyaalka loo daayo yoona wada daadin raashinka markaad xoogaa ka siisaba وديب أصير خاندة هافن هدادي هافن أفكا هقشتو محايا لي مر والبي المها قعنت هذا إني كجران لما برو وحالبا هي إنا يارك برتوم حيث اسكو في الناشو إنا قرسيسو المها هذا ما شاء الله سودا وادا أيا إذن لي هقع مفرنكو سودا وادا أدى أمها سنتهين مركلي